السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام وحن سلام يا أمد الصومالية ملكة توجوكتان. أنت والله بدي جولاي وحن دلله هاي نحرني ما وناكسن بدني ما وناكسن على كبلوجة صومالي هجرتوها شوكتو إلهي بدني ماذا يقلب جنا هم ديو بدني ماذا إننا كرها وقاضو قروب تيننا إلهي سبحانه وتعالى وناك يسوقليو. أنت مكان كجود وحن سلام يا دمام ومد SSC وحن دلله هاي هذا ندين سلام يا ملك استوجوكتان قارهان وحن سلام يا رير لاس حانو قولي يقبلني إلهي وح وناكسن هاي نوافق شيء دمانتين وحن ما سجى جوضا رير سوماليلاند رير سوماليلاند ودي كان واردين سلام صغير يا كبير بردين سلام يا ملك استوجوكتان عاو إرجع ندين كهاي ما سج عن عراء هين أو عدفة هين أو عقلية سباردين صدريا لما يهورت وحويان وحردين شيء جيا maanta wixii SNM aad kula baxdeen ee aad tiraadeen waanu ka dagaalanay horta waxa way qasaare ku fadhidaa qasaare ahayd waxaan idin sheegayaa shicibkeenina waa dulmideen shicibkiini go'doon baad ka dhigteeno waxa tiraadeen gacal waxa idiin xabashi waxa tiraadeen waa leedin dilo markay in yar degaanba waxaad u soo faagtaan lafo cidii dishay aan la aqoon idinku dishaan la ogeyn waxaad ku beerteen cuqdad inayna bixi karin waxaad ku xidheen meel yar oo edeg ah waa dadkii ku xidheen Soomaalidii iyo dadkoodii waad ka xidhxidheen oramaad wadankii albaabada ugu furteen xabashi baa idin xigtaa tiraahdeen annaga markaan ka hadlo gobol muxuu ahay waqooyi nimayo maanta waqooyi intaad kaligiin shirteen idinkoo rubuc ka ah tirada dadka degan waqooyi baad dastuur samaysateen oo calan idin gaara samaysateen oo maamul idin gaarahood ra'iisul wasaare iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha baleedin samaysateen waxaad ku shirteen dadka idin la degan qaarna inaad dulmidaan qaarna inaad xoog ku qabsataan qaar inaad kala furfurtaan markaan u soo noqdo SSC oo kaliya inaad intaad dadkeena u timaadaan lacag ku kala furfurtaan oo iska hor keentaan oo kuwa akhsunaaska ah sida ina cambaashe iyo ina cali koore iyo noocaas oo kale aad u soo adeegsataan waxaan idin sheegayaa markaa reer yahow maanta dadkiina waxaad tirahdeen Hargeysa Burco iyo Berbera kayuga galo fooda annagana sanduuqyo tahriiba dadka iyaga u soo dirtaan miyaan aqligiinu shaqeynay dad markaa doonayso deeminaad dawlad iyo maamul dhisato dee cadaalad iyo sinaan baa la sameeyaa maamul loo dhan yahay oo dadku idinla shireen oo wax idinla samaysteen baa loo sameeyaa dib u heshiisiin iyo wanaag baa loo sameeyaa laakiin idinku waxaa ku soo shirteen dulmi idinka baa isdulmiyaya oo aan u sinayn waxa haysataan ma naga had noo jiidaysaan bal idinku is xisaabiya hadda Muuse madaxweyne idiin ah isagii baa dadkii dhacaya shicibkiiba guryahoodii ka qaadanaya oo beerahoodii ka qaadanaya oo dhulkoodii ka qaadanaya oo muxuu aniga ii soo sida ninka dadkiisa dhacaya markuu leeyahay xuduud baan soo xidhaya ma waxa weeye gacmaha dhigo dhulbahantow iyo lugahaba dhigo iska xidh dabadna aniguna aan ku dilo Faysal Cali Waraaba qiray inuu ragga dhulbahante ee laascanood lagu dilo iyagu aaleyseen marka lacagtiina la qaadan waaya anaga leeynay buu yiri marka maanta dhulbahanta idinku dhul durugsi waxaan ahayn iyo dil iyo dad gabdhaha iyaga iyo ragga iyaga aad qaraf soocataan oo aad sharafta iyo bahdil ku samaysaan un baa noogu timaadeen anaga marka dadku idin la hadlaan oo tira leedin yiraahdo waxana wadaan raali kama niin waxa ku jawaabtaan wadanka ka guura wadanka annaka kale dama waxaasaa dawladnimo iyo maamula war bahashaniyo soo barta daarood baa na dilay faqash baa na dishay war ma jeerteen baa la dilay wali wajeerteen oo dawladda Soomaaliya dhib isugu tagtay wali cabanaya ma aragteen hawiye daarood baa isdilay wali wax cabanaya ma aragteen idinka uun baa meesha ku taagan oo wali qabyaaladii walaahi dadku waxay moodayaan kaligeena dulmideen shicibkiina dulmideen oo waxa laale waxaad ilaa intaas oo dhowr iyo 20 sano qabyaalad waxaan ahayn oo barteen ma jirto marka ilmaan reeyal waxa idin sheegayaa hadaa leediin daarood baa na dilo faqash baa na dishay dee anagu daarood baa dhalashadii ma naga qaadeen saa wixii isku darsanayna hadaa leediin xabashiyo oramaan walaalanahay dee anagu Soomaali baan walaalanahay xagees ka soo galnaa midda labaad warnimada weyn iskuursanaa horta baaqa koobaad idin tiriyo waxa weeye dee anigu meel la diiqaad garan weyne gabdhihii waa shakiyeene bal alinta daba qabanay nimayo qolamaatihiin mar dirir baa leedihiin mar irir baad leedihiin mar Ciise Buule Axmed baad leedihiin dee waydi sidee hawda karantiyo hilaacyada bari isku heshida midun ku hiro midun ku hagaag marka dee anagu waaba shakinay horta qoladee gashan marna waxa leedihiin Hebrew baan u galnaa Israa'iil baan u galnaa waa maxay sidani halkan tix baan idin soo marinaya dagaalkii sheekadu way soo dhaafto kala shaki dadkan baa dhacay dibna laysu guursan maayo gabadhu weyn ay ogaataa qabiilka guursanaya carruurta u dhalayso intaas oo qabiilna meesha waa ka sheegteen tix gabayaan idin soo diraya macnaheedu la yiraahdo adiga ogsoon meesha aad ku irkanaysaan
nimayaa istajiyo dulmiga iyo qabyaalada joojiyo waddankeena noo dhaafa annagu tagnay waddankeena noo dhaafa idinma rabno idinmana doonayno waxaanu idinku raacnana maydun keenin dowladna maydun keenin qabyaalad cad oo qayaxan oo qaawan oo shacabna gashanayn baa keenteen dee faqash baana dishay dee wallafaa la dilay dee dad baa la soo aas dee annagina waxaad rabtaa inaad qalbiga na tirahdaan waanu idin deena qaadan maysaan wax jeebka gale ma nihin ictiraafka aad raadinaysaan iyo xuduudahana war jeebka kuma sidano waddanka annakaale halkaa wixii kuu maraya wixii cunahaaga maraya baa la liqaa bal haddaad maanta o dhan dhagax afkaaga geliso calaaliso cunahaaga maraya waa maya dhulbaanta dee maaha cunaha ma marayo halkan tix gabayaan idiin soo marinayaa ilaahay haydu ku anfaco hoyaalayey 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 hooye allah hooye hoyaalayey hoyaalayey hooye hoyaalayey 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 hooye runbaa loo ekaysiin karaa been la ururshaye umi iyo caruur siday yihiin aan waxba aqoonin arrinkiyo ikhyaaliga shacbiga lagu asqaysiiyey oo manaha reerkaad dhigteen adhaxda jiilaalka dadkan oo masooraha cidlada ooda lagu saaray edegaa cidhiidhka dadka ku ag wareegaya edegaa cidhiidhka dadka ku ag wareegaya inay ila coloobaan dadka looga dhigay oonta inkiraada soomaalidiyo xabash u soo oyga etoobiya dadka lagu igdhee ee ehelka loo diiday etoobiya dadka lagu igdhee ehelka loo diiday sunta lagu afuufiyo dadka beenta ku abaaday iskuullada waxaa loogu dhigo waa axmaariga afka ay ku aababaan ilmuhu orami weeyaane afka ay ku ababaan ilmuhu orami weeyaane inaad isir inaad necbaatiyo qabiil ma aha ku ugube waxa idinku awdalay cidlada waa ogsoonahaye arki mayna daarood ayaad ku andacootaye arki mayna daarood ayaad ku andacootaye aflagaada iyo cay hawiye ku asaruurteene ictiraaf lawaa iyo waxaad u ololayseene ictiraaf lawaa iyo waxaad u ololayseene afrikiya in badan baad axmaar u ashkatooteene ingiriiskii idin diidiyay iyo eyga faransiise itaaliya waxay idinku tidhi waad ogsoon tahay etoobiya waxay idinku tidhi waad ogsoon tahaye in amerikan idin aqbalo ama israa'iishu inuu idin aqoonsado kufrigu dib uma eegtaane idin diidiyay gaal kaad in badan daba ordayseene idin diidiyay gaalkaad in badan daba ordayseene in islaamku taa uu ayido waa iska ilowe anna ma awilaysaan inaan idinku raacaye irir sheegataa iyo dirmeel kaga aroortaaba irir sheegataa iyo dirmeel kaga aroortaaba asxaabihii baan galaa ku andacootaaba israa'iili inaad tihiin marar aliftaaba abtirsiinyo aan meel fadhiyin ku andacootaaba ingiriis arligan idinma siin aan ku uunahaye ana iskale oo aan ninaba u ogolaanayne haddii aanad iimaansanayn aniya soomaali ogowow halkaad ku ordaysaa agabla weeyaane adigaa ogsoon meesha aad u irkanaysaane adigaa ogsoon meesha aad u irkanaysaane asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh